kulankan isaga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay iskugu yeedhay in ka badan 14 safiir oo Somaliland ku leedahay caalamka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hotel Mansour oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaana furitaanka shirkaasi goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Ali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu shaaca ka qaaday in Somaliland ay buuxisay shuruudaha caalamku ku xidheen dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad waxa uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay Somaliland kursi ugu yeelan lahayd jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ujeedada ay isugu nimi waxa weeye waa aqoon kororsi iyo waaya aragnimo qaybsasho iyo wada tashi aqoon kororsi micnaheedu ma aha dadku inaan aqoon lahayn marka la xulanayo wakiilada waxa lagu xushaa aqoon iyo lagu xushaa iyo karti iyo waaya aragnimo laakiin wax kasto qofku uu qabtaba wuxuu uga baahan yahay had iyo jeer aqoon kororsi buu uga baahan yahay anigu PhD baan sitaa waxaan ku sitaa dhaqaalaha waxaan u baahanahay inaan aqoon badan oo iga dhiman ka korsado waxay ku saabsan diplomacy-ga anu diplomacy ma dhigan kulankeenu wuxuu socon doonaa 5 casho 3 casho hore waxaynu ku qaadan doonaa aqoon kororsiga iyo waayaragnimo qaybsiga 2 casho dambe waxaynu ku qaadan doonaa falanqaynta iyo la fagurka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya maalinta ugu horeysa waxay noqon doontaa maalin isbarasho ay noqon doontaa iyo waayarnimo qaybsi iyo inaynu isdul taagno safiirka iyo safaaraddu waxay yihiin ujeedooyinkeeda ama ujeedooyinka safaaradda qaab dhismeedkeeda shaqaalaheeda wixii la xiriira protokolada iyo sharciyada ay ku shaqeyso maalin labaadana waxaan ka wada hadli doonaa safiirka laftigiisa qurba jooga iyo maxaan yiraahdaa xiriirka maalinta saddexaadna waxay u badnaan doontaa qaybta xiriirka iyo isgaarsiinta 2 casho dambana sida marka hore baan helay waxaanu ka shaqeyn doonaa aba la faguri doonaa ka dibad garan doonaa siyaasadda arrimaha dibadda weynkeena si himilooyinka loo gaaro oo loo hanto doorka ay wasaaraddu ku leedahay waxa weeye iskaashiga caalamiga xoojinta iskaashiga caalamiga dhinaca sugidda nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga dhinaca aqoonta iyo farsamada daryeelka dadka reer Somaliland ee dibadda ku nool kor u qaadidda magaca iyo maqaamka Somaliland u ololaynta raadinta iyo helidda ictiraafka Somaliland ومركي ugu horeysay xukuumadda Somaliland iskugu yeedho in ka badan 14 safiir oo ku leedahay caalamka safiiradan iyaga ah ee saaka soo xaadiray ayaa Somaliland u fadhiya wadamada kale ah Addis Ababa London Djibouti Ottawa Oslo Washington Dubai Paris Brussels Yaban Washington Yaban Sweden China Turkey iyo South Sudan kulankan isaga ah ayaa muddada u socdo lagu falanqeyn doonaa درجلين السياسة دارمها الدبدة خضر كافي سبيس channel أرجيسة